kooxda Kismaayo isugu tagtay waxay xal sii daayeen qoraal ka koobnaa 17 qodob marka laga reebo 2 qodob oo isku sidkan 15 kale waa xarfiyi hotel Jazeera lagu soo bandhigi jiray oo Kismaayo lagu soo bandhigay markan kooxdan waxa ugu weyn ee shirkooda laga filayay waxay ahaayeen 2 arrimood midda koowaad waxay ahayd dhismaha golaha mustaqbalka iyo midda labaad oo ahayd inay soo jeediyaan nooca doorasho ee dalka ku habboon maadaama ay diideen nooca wada madaxweyne xasan sheekh midii dhismaha hoggaanka golaha mustaqbalka waxaa Kismaayo tali 2 aragti oo dhismaha golaha laga damacsanaa aragti waxay ahayd Shariifka oo gudoomiye ah Siciid Dani ama Axmed Madoobe oo midkood ku xigeen qaato iyo in xogaan la sameeyo aragtidaas waxaa qabay Shariif Sheekh Axmed iyo Saacid aragti kale waxay ahayd in Shariifka laga ilaaliyo hogaaminta golaha oo taas bedelkeeda Siciid Dani hoggaan la siiyo ama xogeena la qaato oo gudoonka sare la iska dhaafo aragtidaas iyadana waxaa qabay Xasan Cali Khayre Siciid Dani Maxamed Xuseen Rooble iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur markii dhismaha hoggaanka maamulka la soo gaaray si cad ayay xubnihii xamar ka tagay dhinaca isaga riixeen in Shariifka hoggaan la siiyo Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa ahaa qofka qura ee soo jeediyey in Shariif Sheekh Axmed uu maamuus ahaan u leeyahay hogaaminta golaha mustaqbalka laakiin raggii talada midaysan ku socday ee Shariifka diidanaa waxay soo jeediyeen in arrintaasi cod la geliyo taas oo kulanka adkaysay 2 fadhi iyo kulamo gaargaara oo arrinta gudoonka golaha mustaqbalka looga dooday labadiiba waa la diiday Shariifka dhinaca kale Siciid Dani oo markii uu ogaaday inuusan gudoomiye helaynin difaacday aragtidiisii ahayd in xogeena loo dhiibo shaqada ayaa isku dayay in la taliyiisa dhaban cad laga dhigo xogayaha guud laakiin isagana taas waa laga diiday oo xildhibaan Cabdullaahi Carab ayaa la soo jeediyey in xogayaha koowaad ama xiriiriye uu sii ahaado golaha mustaqbalka nuxurka saxda ah ee halkan waa in la dhisi waayay gudoonkii sare ee golaha Siciid Dani isaga doodiisa waxaa sal u ahayd in madaxweynihii uu la dagaalamayay ee kursiga filla Soomaaliya haystay iyo madaxweynihii mucaaradku aanay isku xaafad noqonin halka kooxda samata bixinta ee Shariifka diiday ay doodooda sal uga dhigeen inuu sanadkii hore Shariifku hogaaminta mucaaradka lacag badan ku helay haddana uu sidaasi samayn karo sidoo kalena uu fursad ahaan iyaga dhaafayo haddii ay gudoonka siiyaan qodobka labaad ee kooxdan laga filayay wuxuu ahaa inay soo jeediyaan nooc doorasho ah dhowr jeer oo ay shalay ugu dambeysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu soo jeediyay mucaaradkiisa inay la yimaadaan aragti ay ku midaysan yihiin oo uu kala doodo laakiin sida qoraalkooda ka muuqatay waxba iskuma raacin oo aragtidoodu weli ma midaysnaa kooxdii isugu tagtay magaalada Kismaayo haddii ay hoggaankii sare ee golaha mustaqbalka si rasmi u dhisi waayeen oo dhinaca kalena ay keeni waayeen nooc doorasho ah oo ay ku midaysan yihiin waxay ka dhigan tahay inuu shirku ku soo dhammaaday aan samayno isbadbaadin been abuur ah waxa qura ee ku cusbaa 17 qodob ay soo saareen waa kulanka ay ka dalbadeen madaxweyne xasan sheekh ee ay muddada halka bil u qabteen iyo daarta ay gadaal uga kabeen ee ah haddii aan ku arki weyno waa tashanaynaa